السلام عليكم حوالي ميل كستو جوجتان دمانتين وادي سلامي محوها رجي دمر ميل كستو جوجتان دمانتين السلام عليكم وعبد الله جودح برre oo idi salaamayo waxaan codkan u duubay in aan ku cadeeyo arrin social media dhex wareegayso oo aan filayo inaad iiga baahantihiin inaan cadeyn ka baxsho arrintan waxay salka ku haysaa ergadii Nairobi laga diray qadiyada xawaadle Ethiopia ka shaqeynaysay oo Nairobi ku soo noqotay oo warbixin siiyay xawaadle weynaha jooga Nairobi arrintaas ayaan rabaa inaan ka warbixiyo sidee wax u warbixiyaan sidee ugu maqaalaha wax sax ma aha laba arrin oo sheegeen rabaa inaan cadeyn ka baxsho arrinta koowaad waxa waaye inay ka soo yeertay in Abdullah Goodax uu yiri ugaas xawaadle oo ugaas Xasan bedelo hala sameeyo taasana warkayga ma aha meelan ku irina ma jirto meeshii aan ku wada hadalnay ragaasne laba mar oo kulannay meel fagaaraha iyadoo dad kala joogay marka waa been abuur haddii arrintaas ay noocaas u dhigeen aniga ugaaska xawaadle rididiisa iyo duubidiisa inuu khusayso mana aha waxyaalahan ka shaqeeyo muxuu ahaa xawaadle weyne u taala haddii ugaas Xasan muxuu ahaa la ridaayo iyo hadduu joogaayo wax aniga ii yaala ma aha Abdullah Goodax ma duuban xawaadle duubtay xawaadle u taala marka arrintaas waa been abuur aniga weligay waxaas kula ma hadlin waxaan sar rabaa wixii aan kula hadlay iyaga inaan u sheego oo aanan la gambanaynin oo xaqiiqda ah noocay u fasireen aad meeshaas ka garan kartaan muxuu ahaa warkooda soo guracan yahay arrinta waa ii yimaadeen xamar ay igu yimaadeen warbixinay siiyeen waxay codsadeen in muxuu ahaa dhinacan Soomaaliya siyaasiyiinta oo anigu aan kamid ahay ay gurmad sameeyaan oo ay la hadlaan dawladda Ethiopia iyo dawladda muxuu ahaa kilinka Ethiopia in muxuu ahaa xawaadle yani dawladdan cusub iyo isbedelka dhacay jagooyin laga siiyo taas waa wanaagsan tahay laakiin aniga tala ka wanaagsan oo aniga markaa ila wanaagsaneed ayaan siiyay maadaama waxa ay ka hadlayaan ay siyaasad tahay muxuu ahaa waa siyaasadda aragtidayda siday ahayd baan siiyay waxaan ku taliyay oo ku tusaaleeyay on cabir ku siiyay war xawaadle inta faraha badan oo inta Ethiopia joogo oo xawaadle Ethiopia joogo waxa la yiraahdaa wuxuu ka badan yahay ka joogo muxuu ahaa Soomaaliya maxay u dulman yihiin maxaa dulunkaas keenay waxaan tusaaleeyay in dulmigaas loogu soo dugaalay laba arrin xawaadle Ethiopia joogo dhaqan lahayn dhaqan matalo oo magaalooyin joogo oo matalo oo mataqaanaa muuqdo malaha farabadidaas badan ay qabaan haddana dhaqan malaha muxuu ahaa dhaqan ahaan waxay soo fiiriyaan beledweyne dhinaca kale dad wax bartay oo tuulooyinkooda iskool male magaalooyinka Ethiopia intay aadaan yani dad xoolo dhaqataa ay yihiin marka waxaan iri waxa aad sameynaysaa oo wanaagsan tahay laakiin waxa loo baahan yahay waxa xalkeedu ma aha jaga la raadiyo ma aha xalkeedu waxa waaye meesha dhibku ka jira in wax laga xaliyo xawaadle meel kastoo joogo oo aan hiiraan ahayn waa ku dulman yahay maxay yeelay dhaqan la'aan meel walba la joogan ka jooga luuq iyo gado wuxuu u dulman yahay dhaqan male dhaqankii wuxuu ku xiran yahay xamar iyo candii rabaa meesha la yiraahdo beledweyne ka jooga Kenya wuxuu ku xiran yahay halkaas marka waxa taas ay keenaysaa marka xawaadlu fidaba in qabiilo kale ay sheegtaan in qabiilo kale ay ku dhaqan noqdaan meeshaas ay aadaysaa marka waa laga maarmaan hadiiba xawaadlaha Soomaaliya jooga ay rabaan inay u gurmadaan inay dadkaas ku kaalmeeyaan sidii ay u yeelan lahaayeen hoggaan dhaqan waxa la yiraahdaa qofka malaay hasiinana malayga sida loo dabto bar
dadkan sida ay dhaqan u yeelahay iskugu tiirsanaa lahayn inaan ku kaalmayna ayaa nala gudboon taladaas aan u soo jeediyay waxaan u soo jeediyay inay ugaas duubtaan maadaama xawaadla dhaqan ahaan lagu yaqaan ugaas lahadaan inay ugaas duubtaan xawaadlaha Itoobiya waa dal kale ogow waxaan ka hadlayno waa dal kale waa dal Itoobiya la yiraahdo ugaas inay duubtaan xawaadlaha meesha jooga qabiil kasto jufo kasto xawaadlaha degan inay nabadoon samaystaan taas inaan ku kaalmayno markaas nabadoonnadaas iyo ugaaskaas meeshaas jiro waxay la macaamilayaan dawladaha Itoobiya jiro haday federal yihiin iyo haday yihiin muxuu ahaa dawladda dhexe waxay la macaamilayaan xildhibaano yeelanayaan waxay deegaanadooda mataqaana u loo bigraynayaan xildhibaanadii ay yeeshaan xamar looga ma shaqayn karo waxaan irnayaa noqda waxaan ka ballan qaaday $20,000 oo aniga lacagtayda oo aan qof laga soo aruurin oo anigu aan baxsho inaan ku kaalmaynayo duubista ugaaskaas iyo duubabka dhaqanada waxaan kala ballan qaaday ninka hadda meesha tagay ee kelinka loo geeyay inaan keeno marka xawaadla uu shiraayo oo meel walba iskaga imaanayo oo duubanayo ugaaskooda iyo nabadoonadooda inaan keeno ninkaas si loo arko xawaadla inuu sacayaar ahayn ballantaasna waan qaaday dadkan waxay uga caddahay inay lacag qaadaan ama guriga joogjoogaan meelaha taagnaadaan waxaasna xal ma ah waa ugu soo noqdeen mar labaad waxay dhaheen waxaan rabnaa lacagti war lacagta waxay raadaan shuruudahaasan ku bixinaya hadaad lacagtaas rabtaan aniga waxaan awadaan uma arka inay xal keenayso waxaan xal u arka waa kaas hadaan lilaahi nahay oo si fiican u shaqaynaan aan meeshaas aan ka abaarno haddaad laakiin idigu tan xal u aragtaan falyatafadal aniga qaaraha wixii ugu soo toosaa halaygu yimaado laakiin lacagta 20,000 oo sheegay waxaan ku bixinayaa marka dhaqan la duubayo xawaadlaha Itoobiya dhaqan duubanayo oo loo abuurayo hoggaan sheekadii waxay u bedeleen sidaan maqlaayo ugaaska hal rido yiri ugaaska kan waxaas waa ciyaal suuqnimo wax fiican maaha وحوادله ku aha karana maaha war ikhtiyaareedna maaha waxaan ka codsanayaa inay meeshaas apology ka bixiyaan hadii kala dad ciyaal suuq oo lacag aruurinayo meeshii la aadayna la aqoon ayay u egyihiin taas waa taas waxay qoraalka ku sheegeen inaan lacagta ballan qaaday aan ka noqday lacagta shuruudaas aan markii horeba ugu sheegay waana tala qurxanay ila eed wilina waa ila tahay waana huba xawaadla badan inay la tahay tala fiican in dadkaas magaga aragtay la inay yeeshaan hoggaan inay yeeshaan hoggaankaasaan aniga yani biniya aan u quuray in $20,000 oo aniga aan iga go'in maanta inaan siiyo laakiin $20,000 guri jigjiga loogu ijaarto maanta oo dhan horay gadaal loogu socdo $20,000 aniga igama go'do waa saasaan ugu sheegay sidii hadday marka war xumaynayaan xawaadle luqunta isku gelinayaan iyagay u taallaa laakiin waxaan rabaa in xawaadle ogaadaan arrintu inay noocaas tahay waxaan rabaa xawaadle hadda inaad ka tala bixisaan waxaan afar qof oo ordayso waxay u ordayaan la aqoonin waxa laga hadlaa waa siyaasad qaaraan iyo heblow iyo maaha waa siyaasad hoggaanka hadda meesha joogo oo cusub waa isku fiicanna waan lala macaamil karaa laakiin hadiyad afka lagu gelina ma jirto waa in dhaqankeena aan hoos ka soo dhisnaa waa inaan shaqo adag qabanaa meeshaan ma aha Ethiopia 4.5 ki Soomaaliya kale oo jagooyin la qaybinayo qabiilo naga yar waa wada ogtiin ayaa waxa le wadanka nuskiis mas'uulka wada sababtoo waxa way dadkaas deegaano tuulooyin iskoolaad leh wax le ay degan yihiin dad aqoon la u soo baxo kafac u soo baxay annaga haba soo daaday hadda inaan bilowno way marka dadkii aan la marin habaabinin dadkii aan la wareerinin dariiqaas xawaadlo hal maro hadii aad dhaqaale ku bixinaysaan dhaqaale meeshaas ku bixiya ha ku bixinina dhaqaalo meel guri la galgalay jigjiga la jooga iyo xagga la jooga iyo waxaas waxa way wax oo maala yacni waa waqti dhumis waa dhaqaale dhumis waa marin habaabin waxa qurxan in xawaadlahaas hadaan u gurmanayna hal mar aan gurman oo dhaqan u sameyn macna ma sameynayso in yani xawaadlaha Itoobiya joogo iyo ka gada joogo iyo ka jooga afmadow iyo ka jooga muxuu ahaa Gaarisa inay tala iyo ra'yi ka sugaan waas xasan oo jooga Beledweyne iyo nabadoonada jooga Beledweyne macquul ma aha
ilaahana badiyey waa inaan kala barbaarnaa oon kala soconnaa oo aan isku soo hilownaa laakiin aan dana kala qabsanaa aniga saasaa ila qurxan haddii aan siyaasadda aad rabtaan inaad ku hogaamiyana waa taas haddaad si kale aad ogtihiin xawaadlow isqabta talana isku raaca waxaan maalaa yacniga iska joojiya